qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Saraar ayaa cabasho xooggan ka muujiyay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska gobolka Saraar waxaana hadalladooda ka mid ah anigoo magacayga Khadar Cali Diiriye kana soo jeedo gobolka Saraar waxaan halkan kaga hadlayaa arrimo indhow soo noqonayay oo ku saabsan taliyaha saldhigga degmada Caynaba taas oo muddo hadeer gaaraysa 12 sanadood uu taliya saldhig ka ahaa markii uu dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliska ciidanka bilayska uu ka ogaaday inaan cidna bedelin ayuu si kasta oo xashnimo oo fool xun oo qowleysatanimo oo bilaayaqsiya ayuu ugu takrifulay gobolka Saraar si allaala iyo soo doonana uu ugu talaabsaday dadka dadweynaha ee masaakiinta ee shacabka waxaanu halkan baaq dheer iyo baaq gaaban uga soo jeedinayna madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi taasoo aan ku dooranay inuu cadaaladda iyo sinaanta uu aan madaxweynaha uga dhiganay oo aan codkayga ku soo saarnay waa qodobtaas qodobka labaad waxaan dul marayaa ciidanka ama uu taliska uu hoos tago taliyaha saldhigga bilayska Caynaba waxaana lagu magacaabaa Salmaan Guriyeeri wuxuu si hanjabaad hantigaad uu suuqa uga dhaxyiri aniga tan taliya saldhig ka ah taliya qaybeed ka ah jananka bilayska ka ayuu anigayga idla hadlaya afkiisa igay waxaan ka cabanayaa oo sheegaya ku taliyaha sirdoonka gobolka Saraar waan ogeysiiyay og taliyaha qaybta bilayska gobolka Saraar waan ogeysiiyay waxa laalay waxay ka qabteen ma jirto maalin dhowta waxa dhacday inuu aniga laba inaan ay istishay dabeetana labadii inaan aan ku yidhi odaybaan u ahay labada ninna waa laba ninoo ehela oo gobolka Saraar aniga heshiisiinayay dabeetana anigii biigu yiri booliska wad ka hortumay dabeetana jeel ku xidhay 24 saacadood baan u xidhnaa markii dambena wuxuu yiri waa aniga ninkeedii xidhay si go'o ah oo aan marxaatiyadii haysto ayuu $80 oo lacag ninkii soo dacweeyay ee yiri ninkan ii xid maadaama uu nimanka yiri wan heshiisiinaya ayuu $80 oo lacag ka qaaday ilaahay baa ka shifay waxaan ogaaday inaan ciidu ka daba imanayn waxaan baaqay u sheegayaa taliyaha guud ee Soomaaliland ee ciidanka bilayska Maxamed Cabdilaahi Fadal Iimaan waxaan u sheegayaa taliyaha bilayska guud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cabdilaahi Fadal Iimaan taliye ilaahay baan ku dhaashay muwaadiniintii iyo dhalinyarada iyo shacabkii gobolka Saraar ayaa nahay oo aan ka turjumayo gobolka Saraar dhalinta joogta ilaahay baan ku dhaashay cid wax ka qabatay gobolka Saraar ciidanka ama taliyaha saldhigga ma jirto 12 sanadood nin haystaan waa cadaalad darro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland baa laga yeeli waayay inuu haysto 7 sanadood u dhaafiyo 12 sanadood nin ciidan bilays la isku bedbedelo inuu haysto waa cadaalad darro taliya naga soo gaar baan ku leenahay waa Cabdiraxmaan Faysal Famna telefishinka caalamiga ee TV magaalada Caynaba xarunta gobolka Saraar.